waxaan rabaa inaan ka jawaabo su-aashaan fikradeyda ka dhiibto nio su-aasha waxaan u malaynayaa arrintaas ragga soomaalida inay rag kalsooni la-aana oo wax akhlaaq daran oo low quality oo inselis ay noqdaan nio laba arrimood ayaa keentaa u malaynaya tan koobaad nio waa dhaqanka soomaalidu ragga wuu u been sheegaa ninka soomaaliga ah weligiis lama dhihin war waa khaldantii joog weligiis lama dhihin khalad uu gelayaa dad islaameed u dilayaa dad islaameed u dhacaya dad islaameed u kufsanaya boqolaala ku taageeraysa qof kaloo caynaya boqolaala ku taageeraysa warmadaan maxaa weeye marka ninkii iska caqligaabka ahaa oo aan waxbarasho iyo midna asagoon aqoon lahayn intaas lagu taageeray wuxuu isu maleeya adduunka inuu bahalka asagoo kala hayo qofka bani aadamka wuxuu horumar ah markuu asagu isi su-aalo fikrad markaad haysid kasoo fakar isweydee nin waa khaldanaan karaa ya waxaan inaan sameeyo ma ahayn qofkan waa ka khaldanaa raalligeli adduunku saas ku socdaa ma yaqaanin qofka soomaaliga tan kale haddii dadkii waddankii ku koray haddii dowlad la-aan waaba firi qofka aragtid wax alaa xarti sameen ya maba yaqaanba isfiriba ma yaqaanba qofka kalu arkaa qofka aragtid ay qofka aragtid dil qofka aragtid dhac qofka aragtid xumee waxa aragtid samee markaasuu wuxuu is arkayaa asagoo 30 sano jira oo wuxuu arkayaa bahalkan la yiraahdo wax meesha ku hayo la arag arrintu ku cadaanaysa doqon aan wax kale u yahay la arag oo wax la hadlayo la arag oo doqona oo qashin inuu arkaya marka ragga Soomaaliya waxa kula talinaya inuu dhaqanku idin been sheegay dib isugu laabta is xisaabi is su'aal fikradeena ma khaldan tahay waxaan ma la ii sheegay masxayn horta taas waa mid kooban dhaqanka been u sheegay ragga Soomaaliga been dulmi uu ku haya dhaqanka Soomaaliya iyo dawlad la'aanta that's why qof dad caynaya oo ummad caynaya oo million kale taageerayso Soomaaliya ugu tagtaa ma arkaysi ummad kale waa isqabsataa wareerna hada afkaaga habaysaa leeyahay qofka Soomaaliya ay ummad kale meel soo fariisanaya kumanana taageeraysa tan kalena waa jahilnimada iyo aqoon la'aanta qofka Soomaaliga asoo wax u yaqaan la arag oo wax uu kale u yahay la arag waxa arkaysa asoo ummad yasay ayaan xamaran Kenya tagay waxa arkaysa midka xun gaalka ah midka xun madowga ah wariha la tajaay yaay ku jaaba hal xaba ma yaqaan hatta sida soo xiliga loo wado waxa uu yasaysan ninka miskiinka shaqaysanay oo edebta leh wallahi billahi ragaas Kenyaanka iyo maqaadaas ka shaqeynay akhlaaqda wanaagooda iyo say u edebsan yihiin iyo say u dadaalayaan iyo say dadka Soomaaliya xun caloolaha ku soo maqaada fadhiyo oo dhaqmaya waa ka xumaado wallahi billahi ilaa marmarka qaar ay iimaanays si loo dhaqmay war adiga gaal xun weey war adna waxa arab ka dhaxashay oo bahalka iyo aabaha aad haysataa asaguna wuxuu Ingiriis iyo aabiis ka dhaxlo haystaa isla weynankan iska daaniyo be humble brother is xisaabi ilaahay ka baq waxaan maxaa